xafladan oo ah mid si heer sare loo soo agaasimay laguna dahfurayay dhismaha cusub ee dugsiga Maama Geediye uu sameysay hay'adda Qadar Charity ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka gobolka Bakool ardada dhigata iskuulka Maama Geediye iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha dugsiga Maama Geediye Cabdullaahi Aadan Cali Diso wuxuuna u mahadceliyay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda Qadar Charity oo hirgelisay dhismahan cusub may mahadnaq bileerin meeluhan ku jeediyay hay'adda Qadar Charity oo in suurta geliidi dhismahan cusub oo meelanka yaalisan aragahaytaan may kala mahadtaasamad yani meel khaayin jeediyay agaasimaha guud ee waxbarashada Koonfur Galbeed oo hanoo la qayb qaad may kala mahad meelahan ku jeediyay macallimiintii la bilaawtay ilaa ay geekoosis wal ku bilaaween ilaa yoomna ahaad in macallimiintii cusubnayd oo madii oo yani meel khaayin siidadkii lagu bahi sayleen gari lahaan gudubi iyo walna la qodobeen bulshadii ka qayb gashay munaasabada ayaa aad u soo dhaweeyay dhismaha iskuulka oo noqonaya kii ugu horeeyay oo hay'adan ay ka hirgelisay degmada Xudur ee gobolka Bakool Cismaan Ibraahim Muuse waa wakiilka hay'adda Qadar Charity wuxuuna la dardaarmay waalidiinta ardada dugsiga waxaan naga rabaa waalidiinta iyo inta ka soo qayb gashay in il gooni loo lahaado ardada wax baranaysa iyo macallimiinta wax baraysaba arday xilligii hore dadkii soo gaaray ardayga wax baranaya magaalada markuu magaalada gala lacagta baawur raac ma laga qaadi jiray gaari alla gaariga socdo lacag laan uu ku qaadi jiray xilligii hore oo xukuumadda ilaahay markuu goynaya baawurta dhawaa istaagi jireen arday uniform wata oo maxaan ku dhahaa dharka jaalaha wata ama dharka buluuga wata oo laamiga yimid inuu gooyar raba baawurta dhawaa wada istaagayaan waa la ixtiraami jiray ixtiraam waay meel sar uu bulshada ka taagnaa raafadurna waxaan rabnaa ixtiraamkii ardayga u lahaa in la soo celiyo gabagabadii waxaa munaasabada soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Shariif wali hore korna iskuulka aan ka horeeyo ee dhismaha ee degmada Kiyaala Xudur waana sarkora xaqiiqi intuition Kiyaalna magaalooyinka mid ah meel raayis Soomaaliya taasna ma hadii wali iskuul meel raayis hay'adda Qadar Charity oo ka mahadnagaan waqtiga oo kooban oo waqti dambe oo xilli badan aysan fadhiidaan awgeed wali faday meel raayis intaan isku kooban kaliya meel raayis dhowr nuqtaan oo korsurma oo qoray waalidiinta iyo community deegaanka intii meel raayis iskoolku quruxda badan la ndasi sidii meel raayis walbarashadiisa soo fadhi waalidiinta qayb ku qaada Maxamed Xasan Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur.